Golaha Guurtida Somalilan ayaa fadhigoodii maanta dood adag ka yeeshay hannaanka ay u socoto waxbarashada dalku waxaanay xildhibaanadu soo jeediyeen in la tayeeyo manhajka dalka isla markaana la xoojiyo barashada luqadda Carabiga dugsiyada dalkana lagu wada barto manhajka Somalilan tacliinta xagga tarbiyadda lagu daro ardaygu inuu barto dalkiisa oo wadaniyad lagu daro oo la jeclaysiyo dalkiisa waxtaa waxaynu kaga raysanaynaa dalku hadduu qofku ardayga ahi uu ogaado dalkiisa khayraadka ku jira iyo nicmada taala iyo waxa mustaqbalka laga heli karo waxa laga yaabaa inaanu imika sidoo aaminsan yahay badda talowgeeda u haysto in noloshu taalo inuu ogaan lahaa in dalka gudihiisa khayr badan yaalo laga shaqaysto marka ilmihii oo waxbarashadiisii meel wanaagsan marayso ayay abaar dhacaysa ama roobkii doorkaas yeejinaya dadkaas waxbarashada ku seegaya marka qodobkan waxa soo jeedin lahaa laba qodob in la sameeyo oo awood la saaro si loo helo waxbarasho tayo loo helo dadka reer miyiga ama dadka reer guuraaga ah in 6 gobol ee Soomaaliland ay waaweyn ay caadiga ah 6 gobol ba laga sameeyo iskuulo boodhina oo bal lagu daro miisaaniyada dhowrkan sano ee soo socda oo 6 gobol marka la sameeyo gobolada degmooyinka xiga dhulka hawdka looga sameeyo si ardayda looga reebi karo waalidiinta waqtiga abaaruhu dhacaan oo ay noqon karaan meel ay wax ku dhigtaan sidaas waa sida ugu dhow ay ku badbaadi karaan carruurtuna wax barasho ay ku heli karaan hadda mid kale waan bogaadinayaa oo markii hore isma filaya intaynu maqlaynay wasaaradda miisaaniyadda qaranka in loogu daro waxbarashada qaybta balcaamadaha miisaaniyaddu wuxuu ku jiraan miisaaniyadda golaha wakiilada hortaala aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa in ciddii soo diyaarisay miisaaniyadda balcaamadaha quraanka lagu dhiganayo in lagu daro miisaaniyadda qaranka waayo ciidamada iskama xil saari jirin tayeynta malcaamadaha quraanka miisaaniyadda hore uma lahayn laakiin maanta hadii loo helay in halka lagu daro miisaaniyadda qaranka waxa filayaa inay kor ku dhiman doono ay kor u kici doonto ardayda diinta baranaysa miisaaniyadda quraanka dalkeena maanta waxa aad iyo aad looga bartaa quraanka kariimka oo macaahidda ay dalku leeyahay ay aad u soo saaraan wiilal iyo gabdho xufaada oo soddonka jisa quraanka xafidsan oo maanta wax lagu faanaa oo runtii aad iyo aad u wanaagsan gobolada degmooyinka iyo caasimadaba ay iskuuladaasi ka jiraan waxana ugu fadli badan qofka bini'aadanka qofka baranaya ama ha weynaada ama ha yaraade qowlka kariimka ka barayna ajri buu leeyahay ka baranayna ajri buu leeyahay marka waa in la dhiiri geliyo aad loogu dadaalo kaasi Amir Abdirashiid Abdullaahi Amri Baash Saab TV qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber